السلام عليكم مركلة سود واذا إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحق كليهي فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وبشارة أدومو كوا دقيست هذلك مقلة هذلك كدبنا الراعة كيس وناكسن كواسي وكوا إلهي وهنونيي كواسنا وكوا عقلي له عقلي وصاحبك إلهي سبحانه وتعالى آيادهن waxa uu ku tilmaamayaa dadka mu'miniinta ah waa dad wax dhageysta si fiicanna wax u dhageysta oo isticmaala critical thinking markay wax dhageysanayaan oo ay maqlayaan kadibna wixii ay dhageysteen oo ay maqleen kiisa ugu fiican ayay qaataan kuwaas waa kuwa Ilaahay uu soo hanuuniyay kuwaasna waa kuwa caqliga leh Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caqligaaga marka sidaas ayuu rabaa in aad u isticmaasho su'aasha isweydiinta leh marka waxa weeye sidee wax loo dhageystaa sidee wax loo maqlaa the art of listening sidee weeye farshaxanka dhageysiga iyo maqalka sidee weeyaan waxaa jira book la yiraahdo 11 laws of likability oo hogaaminta ka hadlaya psychology-ga hogaaminta ayuu ka hadlaya waxaa qortay qof la yiraahdo Michelle Lederman waxay ka sheekeynaysaa the art of listening farshaxanka dhageysiga intee ayuu u kala baxaa waxay leedahay 3 nooc ayuu u kala baxaa dhageysiga koowaad waxaa la yiraahdaa listening in waxaa laga wadaa qofka marka la hadlayo in uu dhageysto dhageysigaasna uu noqdo dhageysi isaga nafsadiisa uu ku soo celinayo waxa uu dhageysanayo oo uu maqlayo waa in uu ka dhigaa sidii isaga nafsadiisa macluumaadkaas iyo xogtaas ay u anfici lahaayeen su'aalaha marka uu isweydiinayo waxa weeye aniga information-kan xogtan iyo macluumaadkan la siinayo sidee ay ii anfacayaan su'aal walba markaas waxa weeye qofka uu dhageysanayo uu weydiinayo qofkaas wax dhageysanaya ayay ku saabsan tahay listening in saas ayaa laga wadaa inaad nafsadaada ku soo celisid faa'iidadii dhageysiga nooca labaad ee dhageysiga waxa la yiraahdaa oo ay ku tilmaamaysaa listening out waxa weeye qofka aad dhageysanaysid marka aad dhageysatid kadib isaga inaad su'aalaha ku celisid adigoo raba markaas waxa weeye qofkaas in aad la falgashid qofkaas in aad xiriir la samaysatid qofkaas aad fiirisid sida isaga uu wax u bartay sida isaga uu wax u yaqaano iyo isaga waxaad ka faa'iidi kartid marka listening out qofkii kula hadlayay oo aad dhageysanaysay ayaad su'aalihii ku celinaysaa qaybta saddexaad ee dhageysiga ay soo bandhigaysaa Michelle Lederman waxayna leedahay waxa la yiraahdaa listening intuitively waxaana laga wadaa qofka in uu su'aalo waaweyn markaas waxa weeye marka uu macluumaadkii dhageystay uu isweydiiyo oo ah what how iyo why waa maxay waxan sidee waxan loo sameeyaa iyo why sabab xikmadda iyo hadafka ujeedada iyo aragtida laga leeyahay waa maxay wixii uu dhageysanayay ayuu su'aalihii ku soo celinayaa wixii ayuu sii kala shaandeynayaa uu falanqeynayaa uu fasirayaa faahfaahin hoose ayuu u raadinayaa marka dib hadda u soo laabatid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu noo sheegayaa الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه إن إله سبحانه وتعالى دتك انت وحدك يستحدنا كيس في عنقاتا إن إله سبحانه وتعالى السجن حقيسة وكهنونين يو حقيسنا وكسينا يو عقلي أهل العقل ويدتكاس دتك عقلي له عقلك صاحبك الله ويان إله سبحانه وتعالى عقل في عنا هنصيو إله سبحانه وتعالى هنهنونيو وحنجعلها إن المقال كان وحد كبرتين وحد كفائدين خير بدن با إدي رجانيا وقال كان دتك كلا لو داغا دتك كلا سي غارسيا إن شاء الله تعالى وصلصوا عنينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.